maanta anagii hooyo waxaan nooga sheekaysaa sheekooyinkii boqorinta ahaa waan dila dhageysanay malaa hooyo waa qofayne sheekooyinka carruurta maxay ma dhageysanaysaa ma hooyo maanta Facebook baa indhihii ku daalay mobile umbaan saa iska hor haya indhihii way daaleen madaxiina way xanuunaya maanta waxaan doonayaa inaan sheekada carruurta eed haysaan inaad iiga sheekaysaan ma dhageysan kartaa haa dhageysanaya si fiican u dhageysanaya waliba maadaama maanta hooyo nala dhegeysanayso sheekada sheeko aad iyo aad u qiimo badan waa inaan uga sheekeynaa haddaba beri waxaa jiri jiray boqorkaas waxuu maamuli jiray tuulada waxaa ku noolaa nin aad iyo aad u fiicnaa oo caqli badnaa oo la odhan jiray cilmi haddaba boqorkaas markuu tuulada maamulayay dhowr sano waa u dhintay boqorkii kadib dadkii tuulada degnaa oo u kala qaybsanaa qabiilo ayaa isku qabsaday xilkii kadib qabiil walba wuxuu dhahdaa boqorka anagu nagu soo jeeday iyo annaga karti fiican cadaalad fiican si wanaagsan dadka xukuminaa waa inaan annagana doortaan kadib waa sida maalin walba way isku haysan jireen kadib cilmi ayaa beeshii ka dhex kacay kadib waxau idhaahday war waayadan qabiil iyo waxa aanaydan ku dooran ninka dooranaysaan iyo lacag waa inaad ku doorataan karti iyo si cadaalada iyo inuu leeyahay geesinimo oo si cadaaladeedii xukumo ninkaasaana fiican una qalma xilka kadib oday beesha fadhiyey oo ka soo jeeday beesha ayaa kacay kadib wuxuu yidhi cilmi ayaa nin fiicana oo caqli badan cilmina leh aqoonna leh kartina leh si cadaalada inoo xukumaya waana cilmi dooranaa kadib dadkii waa ay tashadeen qabiiladii waanay isku waafaqeen laakiin se cilmi kama u soo jeedin intaa qabiile meesha degnaaba beesha kama soo jeedin kadib cilmi ayaa ay doorteen cilmi dadkii si wanaagsan ayaa ula dhaqmay waanu xukumayay si aad iyo aad cadaalad ugu jirto haddaba sheekada ujeedadeena waxa weeye inaynaan qofka amba cidda aynu dooranno aynanu dooran lacag buu leeyay iyo uu qabiil fiican yay qabyaalad aynan ku dooran waynan ku dooranaa inuu si cadaalada dalkiisa iyo dadkiisa iyo meeshuu maamulayaba uu uga soo baxayo waajibkiisa sababtoo ilaahay uu ka xisaabinayaa haddii aad si cadaalad daraa aad u xukuntid waayo ka gaajoonaya maanta waxaa haddaad xil haysid marka waxaa la doonaya ka gaajoonaya inaad ogaatid xaaladda ku jiro inuu wax cunay dadka inaad ka warhaysid ka warrama sheekadayda maasha allah isma lahaynba inankaad dhashay ayaa sheekada intaa leg maskaxdiisa ku duugantay maasanta hooyo haye adiga sheekadaadii baan doonayaa hooyo bilaa sheekadeeda ku qanci weyda waan ku qancaya waa sheekadaada ilaa saa maanta waad iga qarinaysa soo maa haye sheekadaadan doonayaa berigaa waxaa jiri jiray nin berigaa waxaa jiri jiray boqor necbaa in runta loo sheego qofka runta u sheega jeel buu ku xiri jiray weligiiya amba kurkuu ka jiri jiray haddaba tuulada uu boqorku maamulo waxa ku noolaa nin la odhan jiray bare ninkaas wuxuu lahaa beertaa uu lahaana wuu ilaalin jiray maalin maalmaha ka mid ah ayuu bare soo kacay isagoo isle beertiisa soo kormeer amba soo eegag kadib isagoo beertiisa dhowr jeer ku soo wareegay ayaa markuu is yidhaahday beertii ka bax ayaa uu maqlay wax isaga la hadlaya hareerihiisu eegay waxa uu arkay 2 shimbirood isla hadlaya haddana wuxuu is yidhaahday iska tago haddana wixiiba la hadlay wax marka uu diiday waa uu helay waxaanu arkay kur go'an kur keliya oo la hadlaya wuu argagaxay waanu cabsaday kadib kurkiiba ku yidhaahday abbarow boqorkan idin xukuma runtuu nacebi anigaa runta u sheegay oo kurku waa iga gooy kadib marka waa runtii maqlay waa uu rumaystay inta uu soo cararay ayaa uu imaaday dadkii tuulada waxaanu ku yidhaahday dadow waxaan arkay kur igu leh boqorkanna xukuma runtuu necab yahay dadkii way rumaysteen boqorkii baanu warkii soo gaadhay markuu boqorkii warkii soo gaadhay waxau ku yidhaahday waariya barrow ma anigaad been iga sheegaysaa inaan runta necab ahay oon inaan runta necab ahay oon dadkana kurka jiraan bajeel ku xidho markaan qof run ii sheego waxau ku yidhaahday haa waad samaysaa anaana u sheegay dadkii inta uu amray ayaa uu ku yidhaahday askartiisii kurka ka jara ninkii kurka waa laga gooyey dadkii tuuladuna waa ay maqlay arrintii kadib dadkii tuuladu way iskaga guureen meel fog markay qabteen ayaa uu boqorkii ka daba yimaaday waxau ku yidhaahday waan qartay dembigayga runtana ma nacayo mar dambe ee ii soo noqda dadkii arrintii ka diideen kelina uu ku dhintay isagoo meeshii qasrigiisa iska jooga
sheekadiina saasay ku dhamaatay diricda sheekadan waxa weeye runta ha nicin beentana ha jeclaa runta nic beentana jeclaa karambal ma ku qancisay hooyo maskaxdaada waaban ka yaabay maasha allah wallaahi horta labadayda inamood ma kala dhacaan midba mid ayuu ka daray anu haddaba waxaan ka naxay sheekadaada ninkan kurta laga jaray iyo sababta looga jaray ma bare may barra maaha ninkii ka horreeyey kurta la hadlaysay gabadh bay ahayd be oo maxaa boqorkaa ka jaray miyaa haa run bay u sheegtay waxay ku tiraaday anigoo muxuu ahay iska soo boqorkii waa soo qabtay uu ka shakiyey wuxuu ku yidhaahday maxaad qabanayso waxay ku tiraaday anigoo eeganaya muxuu ahay iska eegaya gurigayga waxaan jeedaa anigoo suuqa qabanaya ayuunbaad qabato halkan aad keentay kadib wuxuu arrintan uu ogayay inay dhab tahay iska soo qabsaday dee kurkun buu ka jaray dee barrana waa laga dabageeyey marna waa laga dabageeyey adigu sheekada maxaad ka faa'iiday يعني waxaad leedahay maxaa cilmi loogu bixiyay hay cilmi maxaa loogu bixiyay aniga waxa kale cilmi waxa uu ahaa nin aqoon badan oo dee aabihii baa u bixiyay cilmi ma sha Allah tahay su'aal baa jirta aabihii markuu ilmaha yar dhashay wuxuu ku gartay inuu cilmi leeyahay ilmaha yar magacu waa magac de horta laakiin inuu cilmi leeyahay u bartay cilmiga ilaa qofna kuma dhalan isagoo cilmi la day qof walba waa wax bartay waa inuu bartaa cilmiga qof walba wuxuu bartay laakiin waalidkii baa u bixiyay cilmi ka wax lagu dhawaayay barnaamijkeena aadka xisaabadnaa aad kala socoteen telefishinka Hoonkiiba TV gaaraan hoos ka dhis amrada arta waxaan la socodsiin barnaamijkana maanta anigoo ah Ahmed Isar Khadar iyo mubaarak tayga waxaan iskaga tagnaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh